kulanti wanaagsan mar kale iyo cooking with Xafsa in kusoo dhawaada meel kasta oo aad naga daawanaysaan maanta waxaan joogaa stuudiyaha Somali TV ee Minneapolis maanta waxaan idin tusayaa insha Allah cabitaan caafimaadkaaga u fiican maadaama hawada kulushahay dadkan cabitaanada la qasqasayo waxyaabahaas ay jecel yihiin waa ogtihiin ma yahay aniga fan of that ma yahay insha Allah waxaan jeclahay waxyaabaha caafimaadka maaragta horumarinaya ilmaha u fiican adiga naftaada horumarinaya insha Allah cabitaan aad u fudud saddex waxooda isku daraysaa waa dhamaatay waxa isku daraysaa ananaaskaas iyo qaja iyo maaragtay qajaarkaas jab insha Allah iyo malab baraf iyo biyo isku daraysaa ma sha Allah waxaan ku leeyahay commentigiina waa la yaabi doonaa fiiriya sida fudud loo sameeynayo waxaan isku darsanaynaa biyo haddii aad rabtana waxaa ku darsan kartaa biyaha qumbaha insha Allah magaaladan waxay yaalaan meel kasta waa laga helaa waxay ku jiraan caagag dukaamada cuntada laga soo gataa laga soo iibsadaa waxaa ku daraysaa baraf yar waa ogtihiin waqtigaan oo kale barafka si fiican u soconaya ananaas waxna ma jarjaraayo studio jooga waa idin sheegay maanta mindi male laakiin mashiinka taker ku sameeynayo waxa soo dhan wari malaba ku darsanaysaa ama sokorkii aad jeceshahay laakiin aniga sokorta ma cabo waa ogtihiin haddaad malab jeceshahay ku darso haddii kale sidiisa maxaa yeelay ananaaska qabo maaragtay macaan insha Allah waaba intaasba alaab waxa kaaga soo baxaysa heer sare ah walaalaha oo Soomaali iga daawanayo waxa isku shiidan kartaan canuuni iyo qajaar aad maaragtay uga faa'iideysan aad u fiican yahay caafimaadka ugu horumarinaya dadka kale tan insha Allah ananaaskaas ka faa'iideysta maxaa yeelay vitamin C ba ka buuxa oo haaraha iyo waxyaabaha la mid ah insha Allah ka baabi'in doona halkaasa cabitaankeeni sida fudud maaragtay loo diyaariyay wakaasa ilmaha marka insha Allah dhaqanka fiican waxa waaye wax fiican ilmahaaga ina u shiido wax fiican maaragtay inaad maaragtay barto maxaa yeelay caafimaadkiisa horumarinaysa ama caafimaadkooda ay horumarinaysa dhammaan insha Allah wakaasa cabitaankeeni sida fudud loo sameeyay waa idin dhadhaminayaa haddana ma sha Allah ka war doona cabitaankaas comment ka sameeya insha Allah wixii talo iyo tusaale hoos ku reebo ama